salaamullaahi calaykum saaxiibada qiimiga badan jimco wanaagsan halkan waraadiya iyo TV-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada Beledweyne qodobada warkayaga kuwa ugu doorka roon waxaa kamida madaxweynaha Soomaaliland oo ka qayb galay munaasabada 26 Juun madaxweyne Farmaajo oo ka qayb galay xuska xurriyadda gobolada waqooyi madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland oo lagu wado inay maanta kulmaan iyo madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jaray xarumo lagu dhisay isxilqaan qodobadaasi iyo kuwa kala hadba inagu soo kordho goordhow u diyaar garooba mar kale isku soo noqod wacan maalinimadu waa jimco taariikhdu ku beegan tahay 26 Juun sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland oo ka qayb galay munaasabada 26 Juun madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabada 26 Juun oo ah markii gobolada waqooyi xurnimada ay ka qaateen gumeystii Ingiriiska madaxweyne Biixi ayaa ku dheeraaday sharaxaadii shirki dhawaan Djibouti ku dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya isaga oo sheegay in wadahadalada ay uga jiraan iyaga oo ah laba dowladood oo siman madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu hambaliyay dadka reer Soomaaliland munaasabada 26 Juun oo markii ay xurnimada ka qaateen gumeystii Ingiriiska oo sanado badan gumeysi ku hayay waxaana socda munaasabado lagu weyneynayo maalintani oo guud ahaan Soomaaliya laga dabaaldegayo dhanka kale isla madaxweyne Farmaajo isna ka qayb galay xuska maalinta xurriyadda gobolada waqooyi ee 26 Juun madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay xuska sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegatay maalinkii xurriyadda gobolada waqooyi ee dalka ay ka qaateen gumeysiga Ingiriiska waxa uuna hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabada ayaa si qoto dheer ugu soo bandhigay muhiimadda maalinta 26 Juun oo xusuus weyn u leh shacabkeena maadaama ay ahayd ilayskii koowaad ee halgankii xurnimadoonka iyo maalinkii koowaad oo calanka Soomaaliyeed laga taago dhul Soomaaliyeed oo xor ah dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo salaan sharaf ay siinayaan cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka baambeyduna ayaa ku maamuusayaan heesta calanka ayaa calanka saaray madaxtooyada qaranka halkaasi oo ay munaasabadu ka qabsoomaysay dhinaca kale madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland oo lagu wado inay maanta kulmaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa la filayaa in ay maanta ku kulmaan magaalada Gaalkacyo oo ay labaduba ku wada sugan yihiin labada madaxweyne ayaa howlo kala duwan u jooga magaalada Gaalkacyo iyagoo labada daan ee magaalada ku kala hoyda kulankan ayaa la filayaa in looga hadlo waxa kamid ah amniga magaalada Gaalkacyo ee la dagaalanka al-shabaab iyo iskaashiga la xiriira ka hortagida colaad beeleedyada ka dhaca deegaanada ka tirsan gobolada Mudug amniga magaalada Gaalkacyo ayaa la adkeeyay waxaana magaalada ku sugan madax heer sare ah oo ka kala socda maamulada Galmudug iyo Puntland qodobka ugu dambeeya qodobada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jaray xarumo lagu dhisay isxilqaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in maanta xarigu ka jaro xarumo dan guud ah oo ay dhistay dowladda Soomaaliya xarumaha la filayo inuu madaxweynaha daahfuro waxaa kamid ah tiyaatarka qaranka madxafka qaranka wasaarado iyo xarumo kale kuwaasi oo lagu dhisay barnaamijka dowladda ay u bixisay isxilqaan tiyaatarka qaranka oo ugu horeeyo xarumaha la daahfurayo ayaa waxaa ka socda diyaar garow soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jari doona dowladda Soomaaliya ayaa xarumo badan oo dowladeed ku dhistay barnaamijka ay ugu magac dartay isxilqaan kaasi oo ay ka qayb qaateen dhammaan shaqaalaha dowladda qaybihiisa kala duwan qodobka ugu dambeeya dibadda ayaa noqonaya tirada dadka ku dhintay dhulgariir ka dhacay Mexico oo korortay khasaaraha ka dhashay dhulgariir ka dhacay dalka Mexico ayaa sii kordhay waxa uu dhulgariirkaasi ka dhacay koonfurta dalka Mexico sida ay sheegeen wararkuba tirada dhimashada ayaa haatan sii maraysa 11 qofood
cabirka dhulgariirka dalkaasi ka dhacay ayaa ahaa 7.4 marka loo eego cabirka dhulgariirada. sidoo kale dhulgariirku waxa uu khasaare culus u geystay dhismooyin badan oo dalkaasi ku yaala. kumanaan qofood ayaa guryahooda isaga barakacay, waxaana dhulgariirkani uu noqonayaa kii ugu xoogganaa ee dalkaasi Mexico ka dhaca tan iyo sanadii 2017. saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen raadiyo iyo TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne. warsoo jeediyuhu waa aniga Jamuni, tan iyo warkaan mid lacayn ah. nabadgelyo.